salaan diiran dhegayste ku soo dhowow riwaayadeenna taxanaha ee xiisaha leh ee sahanka nolosha waan ku faraxsannahay inaad nagula soo biirto bandhigga xalqadii la soo dhaafay waxaan aragnay shiikh rooble iyo qoyskiisa oo aruurinaya lacagtii madax furashada ee $12,000 ahayd tolow ma ku guulaysan doonaan inay helaan lacagta oo ay u gurmadaan daahir shiikh rooble kala soco halkan si aad u ogaatid intaasi waxaa sii dheer waa kuma qofka khamarjiga ee raadinayay joofle muxuuse ka rabay waxaasoo dhan waxaa ka ogaan doonnaa xalqadani sahanka nolosha isu diyaari hadda oo ku raaxayso riwaayadda hooyo waan ku baryaa quraaco xaawakin sidaan wax u cuni karaa anigoo wiilkaygii daahir lagu haysto suudaan waxba ma cuni kara iga daahir hooyo inaad tabar heshid ayaad u baahan tahay alla daahir silac wuu ka dhergay suudaan dhexdeeda oo wiilkaygii silac ka dhergay talow biyo ma siinayaan mukhallisiinta mise kaadidiisay cabsiin rabaan allah alla wiilkaygii daahir alla ilaahayow rabbiyow raxmaano ilaahow rabbiyow wiilkaygii u naxariisa yaa rabbi ceebla murug ayaad isku dilaysaa annagu halkan ayaan joognaa cuntada miiska ayay noo saaran tahay fadlan cuntada cun hadalka iyo buuqa iyo qaylida iyo sawaxankan iska jooji abbataad aan wax ku cuno maba hayo sheekhow aniga waxna ma cuni karo waxna mana jiifsan karo mana joogi karo mana fadhi karo maxaan sameeyaa wiilkaygii baa halkaa ku silxisane daahiraa meeshaas ku silxisa waxba ma cuni karo aniga marka shaaha cab waan ku baryaa hooyo maskaxdaada ayuu kuu dejinayaa shaaha daahiroo nabad ugu soo laabta daaqsan unbay maskaxdaydu degi kartaa si kaloo maskaxdaydu ku degaysa ma laha xaawakiin isku darka lacagtu ma sidii uunbaa mise waxbaa iska beddelay haa aabbe wax kasta waan isku daray lacagtii dukaanka hooyo lagu iibiyey lacagtii maqaayadda tii lo'da arigii 400 taydii dhigaalka ahaa iyo dirir 600 iyo hibatayadii 200 ahayd marka intaas oo dhan la isku daro waxay isku noqonayaan $7,000 waa gartay aabbo xaawakiin waad mahadsan tahay hadda waxaan u baahannahay $5,000 oo kale oo dheeraada waana muhiim inaan si degdega lagu helo lacagtaas alla rabbiyow ilaahayow noo kaalmeeya allah anigu hadda waxaan la soo hadlayaa odayaasha beesha waannu u baahannahay inay naga caawiyaan lacagta $5,000 ee haray inta uusan wakhtiga mukhlasiintu noo qabteen naga dhicin taas ayaa muhiim mukhlasiintan xilli kasta ayay ku soo wici karaan wakhtigana wuu naga dhacaya haddaan iska fadhino marka waa inaan dhaqaaq sameeyaa oo hadda aan u taga odayaasha haye aabbe inta aada bixin bal shaah cab mahadsanid xaawakiin aabbo markaan soo noqdo ayaan cabbayaa shaaha insha allah dirir maalmo wanaagsan horay ayay ii soo mareen joofle waan ka daalay calaacalkaaga ilaa iyo dhowr saacadood ka hor markii aan doontaan soo fuulnay iyo hadda oo aan badda dhexdeeda ku jirno eeday uun baad waddaa oo inaan nafteeda sharaxo liima oggola miya oo aan runta sheego kalluumaysigu waa shaqo adag oo aan mushahaar fiican lahayn hadalkaasi waxaa dhahay qof aan rajaba nolosha ka qabin oo wuxuu arkaaba sharraystaa oo maxaad halbacaad ugu lasaysaa joofle sideedaba nolosha dadaalka aad ku bixisid meel faa'iida u dhiganta uunbaa kaaga soo baxaysa hagaag horumarka ha idaalinniyahow tabartana ha iga dhammaynin aan ku raadiyo qofka i raadinayey waxaa laga yaabaa inuu dhaxalkayga hayo waa inoo iyo hadhowti kalkaalisa maryam waxaan rajaynayay in shamsi isbitaalka laga saarayo isla galabtaba maxaa jira nasiib daro middaasi ma dhicin mire waxaa lagu qalay ilmaha oo dhowr maalmood oo kale ayay halkan sii joogaysaa iyada waayahay kalkaaliso bal hooyadu ha yara raaxaysato
oo ha ka nasato ninkeedii qaylada badnaa. alla qofkaasi waa duuliya cali. war kabtan ii waran mire kalkaalis sidee tahay? duuliya xaaladaada caafimaad ma fiicna miyaa? caloosha ayaa saa'id ii xanuunaysa. meeshii loo baahnaa ayaa timid markaa. gabadhan kalkaalisada ah ee maryam ayaa kaa taxadari doonta. shaqada ayaana u sii laabanayaa. kalkaalisa maryam, fadlan saaxiibkayga daawey bal haye dheh. waan isku dayayaa. waayahay duuliya, waad fadhiisan kartaa. mar dhow ayaan kuu adeegi doonaa. fadlan cali iigu yeer. looma baahna inaad duuliya iigu yeertid. waayahay cali. anna sida oo kale maryam oo keliya ma kugu yeeri karaa? waxaan door bidaa in la iigu yeero kalkaalisa maryam. mahadsanid. waayahay kalkaalisa maryam, wax laga yaxyaxo ayaa i haysta. iimana suurtagelaysa inaan fadhiisto oo aan adiga ku sugo. macquul ma tahay in aad dawo isiisid si aad u joojisid ma og tahay macalaashaa ku xanuunaysaa? haa, saa'id ayay ii xanuunaysaa. in aad xishootid looma baahnaa. halkaani waa xarun caafimaad. xishood loogama baahna. isdeji, hadda ayaan ku xalinayaaye. aad ayaad u mahadsan tahay maryam. waxaan ka wadaa kalkaalisa maryam. horta odayaasha beeshow waxaan kaga mahad celinayaa sida aad durba ii dhegaysateen oo aad ii tixgeliseen. taasna dee odaytimadeeda waan leeyahay oo odayaashii magaalada oday ka mid baana. sheekh rooble, middaas waa mid laisku leeyahay. xaaladda daahir waa arrin degdeg ah oo dareen degdeg ah u baahan. waad mahadsan tahay. guud ahaanna waad mahadsan tihiin. qoyskaygu abaal weyn ayuu ku hayaa marka hore. sida horeba aan kugu sheegay, waxaan iibinayaa wixii aan xoolo haystay ama wixii aan xoolo haysanay oo dhan. waxayna isku noqonayaan $7,000. hadda waxaan u baahannahay 5,000 oo kale oo doolar weliba. mukhallasiintaas lacag badan ayay sameeyaan. waa wax laga murugoodo in uu daahir ka mid noqdo dadka taajiriinta ka dhigaya mukhallasiintaas. miyuu idin tusay wax ifafaalo ah oo idiin muujinaya inuu tahriibi rabo? maya, nama tusin wax ifafaalo ah. waad xusuusataa inaan aroos u diyaarinayey. waa nasiib darra sheekh rooble in mararka qaarkood ay dhallinyaradu noqdaan kuwa khayrulmas-uuliyiin ah oo ay ceeb iyo fadeexa u soo jiidaan qoysaskooda. waxaan ilaahay ka baryayaa in uuna waafajiyo ururinta lacagtaasi. ka gadaalna asagoo nabad qaba uu ku soo laabtay reerkiisii ninka daahira. shaki baa igu jira. ma hubtaa in lacagtaas $12,000 oo madax furashada ah haddii la bixiyo ay sii dayn doonaan daahir? alla ayaan tala saaranaynaa. wax kasta allah xaggiisa ayay ku qoran yihiin. marka taasi annagu ma xaqiijin karna, laakiin waanu sugaynaa. laakiin ilaah waxaan ka rajaynaynaa inay toosto arrintaas oo ay soo daayaan daahir. sheekh rooble, $5,000 aruurinteeda waxa ay ka micno tahay in xubnaha ka tirsan beeshan ay iibiyaan alaabtooda qiimaha leh oo dhan. wax badan ayay hurayaan. horta ma hubnaa in daahir ay soo dayn doonaan marka aan lacagta u dirno, mise hawsheennu hal bacaad lagu lisay ayay noqon doontaa. aamiina waxay ii sheegtay in qoyska shiiqa ay u gadayaan wax kasta oo ay haystaan si ay u bixiyaan lacagta madax furashada ee loo haysto daahir shiikh rooble. waxay rabtay inaan saceenna iibinno si aan u caawinno reerkaasi. waxaan ku idhi waad waalan tahay. aniguba ma iibin lahayn joofle. cunugaasi ha u rafaado iimaanla'idiisa. waxaan filayaa in kuwa la filka ah ay fiirsanayaan oo ay wax ka baran doonaan qaladaadkiisa. waxaan u naxsanahay qoyska masaakiinta ah ee la rafaadaya bixinta lacagtaasi madax furashada ah. si kastaba lama hubo in wiilkaasi la soo sii dayn doono, xataa haddii dhibkaasi loo maro oo wax kasta loo huro. fursad intee la'eg ayaa jirta oo lagu soo dayn karaa. allah ma jeclaan lahayn maantaoo kale inaan booska shiikh rooble joogo. haddii abshir fal noocaas oo kale ah samayn lahaa, anigu far ma dhaqaajin lahayn. isaga ayaa isdabari lahaa, hal shay uma gedi lahayn. hadalkaasi waad iska leedahay koodheh, sababtoo ah waxaad og tahay inaadan xaaladdaas ku jirin hadda. maya, waa iga dhab. nolosha sida ay hadda tahay ayay ku adag tahay. in la soo kullumaysto waa dhib miiran. ma aqaan sida uu dirir niyadda u dhisto. intaa ka badan kullumaysi ma aadi karo. dhib ayaan u dhiman doonaa. waan ka xumahay saaxiib. markii shaqo kale raadi jooflow. shaqo kale oo maxay ah? shaqooyinkee jira mire? joofle, adigu taadu waa xirfad. si aan dhib lahayn ayaad niyadjab ugu jirtaa. mar walba waa iska niyadjabaysaa. waxaan u malaynayaa inuu dirir saxan yahay. waxa aad nolosha ka aaminsan tahay waa xumaan unniyo, ma fahanti? laakiin aniga waan ku jeclahay sababtoo ah waxaad tahay macaamiisheeda jaadka ugu badan iga iibsada. malaha waxaaba fiicanba inaan jaad iibin bilaabo oo aan qabto shaqada aan jeclahay. war ma waalan tahay saaxiib? ganacsigaaga ayaad cuni doontaa. haddii aad rabtid inaad jaad iibisid waa inaad iska dhaaftaa jaad cunista. ma anigaa jaad joojinaya?
lagama yaabo taasi. waa u malaynaya inaa hadalkaas soo wadid. waryaa joofle ninkaas soo socda waa kii ku raadinayay. waad salaamantihiin akhyaare. waa kaa qaadnay. waa kaa qaadnay. soo dhowow ku soo dhowow xoogaa jaad ah saaxiib. mahadsanid anigu jaad ma cuno ilkahayga ayaan u naxayaa. waa waree haddaba nabadee halkan ahlu marqaanka keliya ayaa isugu yimaada. laakiin hal kiilo ayaan joofle u qaadayaa. hal kiilo u dhig joofle ma lugaynaa si aan u wada hadalno. yah sabab halkan ayaa ku wada hadli karnaa. waa inaan si gaara u sheekaysannaa rag waa kuwii wada sheekaysteen. warniyo joofle war orodniyo raacniyo jilidka waa la buuxaa ninkaan waxba kuguma samayn karee is adkay raac orod. meel dheer ma aadayo halkaas ayaan istaagaynaa laakiin marka hore midho sii lacagta halka kiilo oo jaadka ah aad tiri oo kuu gadaya. waa tani hoo inakeen hadda hawlo ganacsi ayaan rabaa inaan ka wada hadalnay. waxaa ii muuqata in aadan isku dayin wax uwad kala korin ah oo u dhaxaysa carruurtaada 6 ah. Shamsa miro wuxuu dhahaa carruurtu waa barako xilliga uu rabi dhaho ayayna yimaadaan. haa laakiin alle waa xigmad badane xilligan oo kale uwad kala korintu aad iyo aad ayay muhiim kuugu tahay. waa lagu qalay markaan waa in makaankaagu uu bogsadaa inta aadan ilmo kale uurka ku qaadin. haa waan ku fahmayaa kalkaalisa maryam laakiin qof kale rabo inaad uwad kala korinta kala hadasho waa miro la hadal. marka hore adiga ayaan kula hadlayaa kadib adiga ayaa la hadli doona si aad labadiinna u qorshaysaan waxaa u fiican qoyskiinna. intaa waxaa sii dheer caafimaadkaaga Shamsa haddii uu war kaa maqli waayo aniga ayaa la hadli doona. haa waan ku fahmayaa laakiin miro ma fahmi doonaa arrintan. u sharax asaga haddii uu dhegaysan waayo aniga ayaa idin soo dhexgeli doona. aamina waad soo booqatay. haa xabiibtii taasi waa caadi. alla saaxiibey cunugta yari waxay soo kacdaa markaan isdhaho indhaha isku qabo oo naso aad ayaan u daalanahay aamina. naso saaxiibtaydii qaaliga ahayday balkeen aan la yara socsocdo meeshaan dhexdeedee si ay u huruto in yar. mahadsanid in badan. wuu furan yahay soo gal. xaawakiin halkee wax marinaysaa? hadda xaaladda way deggan tahay aabba guriga ma joogo wuxuu u tegay odayaasha. waan ku gartay xaawakiin xoogaa ma fadhiisan karaa? waxaan u malaynayaa inuu masaajidka ku leexan doono markuu odayaasha ka soo dhammaado. waa yahay laakiin xaawakiinee waxaan jeclaan lahaa inaan adiga kula hadlo oo aan xaaladdaada ka warqabo. dirir waan ka gudbi doonaa xaaladdan mahadsanid. waan ka xumahay wax kasta oo qoyskiinnu ay marayaan. ha u bixin waxaasoo dhan daahir ayaa noo keenay. haa laakiin bal fiiri sida qof kasta uu dhibaataysan yahay aad ayaan uga xumahay. intii karaankaygaan waan dadaalayaa si aan lacag u soo aruuriyo. waan kaaga mahad celinayaa dirir waad mahadsan tahay. xaawakiin daahir sheekh rooble waa walaalkay oo kale aabbahana waa aabbahay oo kale waxaan u samaynayaa niyad wanaag. qofkaas mooga ayuu u cod eg yahay muxuu rabaa? waan arkaa qorshuhu ma sidan baa yaa maxaad rabtaa mooge maxaa ka soo doonta halkan? maxaad halkan ka qabanaysaa dirir? adiga kaama amar qaato mooge. xaawakiin waan baxayaa oo guddoomiyaha ayaan la soo hadlayaa. waxaa laga yaabaa inuu dadka yaqaano suudaan oo uu daahir heli karee. waa yahay dirir waa mahadsan tahay. xaawakiin calool adeeg samee aniga ayaa halkan kuu jooga oo carruurtayda iyo dhammaantiinba idiin jooga. war bax warya wejigaagu weeye bax. waryaa fiiri anigoo sii baxaya ayaa timid maahee mama bixi lahayn halkan ayaan sii joogi lahaa. maxaad halkaan u timid mooge? sow iskama muuqato. mooge murugo badan ayaa i haysa fadlan culayska laha iigu sii darin. waa yahay suhaybisi aniga marka waan iska baxayaa. odayaasha ayaa go'aansaday inaan sii haysto ilaa inta laga gaaraya kulanka soo socdo. maxay odayaashaasi og yihiin? halkan ma meel ilmo lagu korin karaa? abti ku dayasho mudan meesha miyuu jooga? waa abti noocee ah? abtiga daahirowda lahaya ma ninka tahriibay ee doonaya intuu dibadaha tago siduu qashinkiisii iyo wixiisii u soo heeso ayaa leeyahay waa abti meeshan ilmaha ay ku kori maayaan. orodhee bax
orod tag suudaan oo halkaas daahir ku soocay waad og tahay inuusan halkan joogin marka haddii nolosha walaalka ay qasan tahay ma waxaad rabtaa inaad teedana qastidnaya run ahaantii mooge waxaan tabar uma haya aniga xaaladda walaalkii ayaan la murugaysanay marka haddii aadan halkan u joogin inaad i caawisid fadlan iska baxadda marka ma waxaad rabtaa inaan idinka idin caawiyo haddii aad rabtid inaad na caawisid na caawi haddii aysan sidaas ahaynna iska bax fadlan horta anigu idinma fahmi karo dadkiinan faqiiriinta ee faqrigu daashaday haddana kibirku ka buuxo ee isla weyn qofku waa inuu dantiisa yaqaanaa dantiinaba ma taqaanaan marka annagaa fuqaro ah yaa marka waxaad rabtaa inaan lugahaaga kaa shumiyo oo aan hoos isku dhigo fadlan gurigaan ka bax oo dadkeennaan fuqaradaa ammaan sii waxaan sugayaa intaad arrintan ka xallinaysaan kadib ayaan ku laabanayaa odayaasha oo aan wiilkayga ka soo qaadanaya anigu nabaday odayaal waxaan alle ka baryayaa inuu noo naxariisto oo lacagta aanu diraynaa aysan khasaarin oo meeshii loogu talagalay ay tagto waayo dhib badan ayaan ka soo marno lacagta oluliskeeda lacag sahlan maaha marka taas baa ilaahay ka baryaya anugu sheekh rooble horta daahir ma nool yahay waxaa laga yaabaa in aan lacag dirno isagana ay mar hore dileen madax xanuun ayaa igu dishay dhegaysta inta aan wakhti ku luminayno halkii aan lacagta ka raadin lahayn waa dhibaato marka fursaddana way sii yaraanaysaa inuu sii noolaado daahir marka aan raadin lacagta hala raadiyo oo lacagta aan doonno hadal macaldaraa inaan ku sii mashquulno waxba macnaa ma samaynayso sug sheekh rooble ha xanaaqin waxaan rabnaa inaan qaadano go'aanka ugu fiican maadaama aan arrintan ogeysiin doonno xubnaha kale ee beesha waan fahmayaa aniguna wiilkayga un baan u dadaalayaa intii karaankayga sidii aan ku soo dayn lahaa waayo waad fahmi kartaa aabba wiil ka maqan yahay dhibaatada iyo murugada haysta waad dareemi kartaan wax kale maa dhibaatadaas ay haystoon anigu iyaga ayaa soo wacaya sheekh rooble ma waxaa ku soo wacaya mukhallisiintii iyaga ayaa soo wacaya kowdhe ma waxaan ku dhahnaa lacagtaasi waa heli karnaa oo rajo fiican ayaan leenahay mise waxaan dhahaa lacagtaas ma heli karno waxaa ila habboon inaad u sheegto inaan lacagtan heli karno ilaa khayr soo yeed halow waa sheekh rooble adeer lacagta barkan ayaan hadda haynaa inta kalena saacada gudad ayaan ku helaynaa marka dulqaad hala muujiyo dulqaad waa inaad soo dhaqsataa haddii kale yaa og laga yaaba inaan daahir hal il ka soo turno ama aan lug ka goyno hadba sidii nala quman ayaan ka yeelaynaa haddii lacagtaas wakhtiga aan idinku qabanay sida ugu dhaqsaha badan aan noogu soo dari weydaan adeer tartiib isdeji kowdhe anigu lacagtu waa la helayaa hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaa kaloo aan doonayaa sidoo kale ama aan jeclaan lahaa inaan la hadlo wiilkayga daahir oo isaga hadalkiisa aan maqlo si aan u xaqiijiyo ama aan u ogaado inuu wiilkaygu bad qabo aabbaan ahay laga maqan yahay wiilkiisa ka maqan yahay dhibaata ayaas marka wiilkayga balaan la hadla mar fadlan oday annaga ayaa halkan ka arriminay adiga maaha see noola hadlaysa adiga adeer waxaa laga yaabaa inaad lacag ku rabtaan qof mar hore aad disheen marka taas anugu ii xaqiiji balaan wiilkayga codkiisa maqlo la hadlo wiilkayga aabo waa fiicanahay lacagta uuna bixi waxba ima yeelayaan aabe daahir aabbow ii cashi aabbow qaladkaan gare aabbow haleeja cashiyo aabbow ii cashi war ma ganacday hadda sheekh rooble daahir waa markii ugu dambaysay ee aan kuu soo wacayno lacagtaas mar dambe lacagtaas darteed laguma soo wacayo ma fahamtay waan fahmay adeer waan fahmay allo khayrka dhibaataana haysta wiilkayga daahira waa inaan gacan dhaqsannaa si aan lacagta u helno dhowr saacadoodna sii lacagtaas aan ku soo aruurno sheekh rooble duuliya cali safka ayaad ku jirtaa weli ma aadan dhaqaaqin miya waa caadi amina mar hore ayaa dawo la isiiyey haye marka maxaad weli halkan ka qabanaysaa sow xaalku caadi ma aha kalkaalisa maryam waa saaxiibtay waan kaala hadli karaa si ay safka kuu dhaafiso waaba tanaa soo socoto maryam kaale hal daqiiqo aamina waa caadi sidaa looma baahna hee aamina waa ike qofkan waa duuliya cali oo saaxiib dhowla ah qoyskeenna safka waad dhaafin kartaa oo waad caawin kartaa maryam mar hore ayaan u shaqeeyey asaga madaawada ayaad dhib ku qabtaa waan sii soconayaa maryam caawi wiilka waa qof aad u wanaagsane
cali daawooyinku ma shaqayn waayeen way shaqaynayaan balse si aanan wax ugu noqon waxaan rabay inaan lambarkaaga helo si markaan xaafadda tago aan kuula soo xidhiiro oo aad daawo kale iigu qortid haddii aan lacala xanuun dareemo oo maxaad isaga qiyaasatay in aan lambarkayga bukaan siini doono sababtoo ah waxaan noqon karaa bukaan madax adag waa yahay telefoonkaaga keen aan kuugu qoray wakukaas waxaan filayaa in daawooyinku shaqayn doonaan sababtoo ah markaas wicitaan iguma soo dhibi doontid laakiin waxaan filayaa daawooyinkii inay shaqayn doonin aan dib kuu soo wici doono waad waalan tahay adiga haddii sidaas tahay waan hubaa inaan ku soo wici doono si aad waalida iiga dawaysid soo uma jeedid nin waalan ayaa kaa quslinaya marinay kalkaaliso ma shaqaysatid anaga maanta dhan safa ayaa ku jirnaa mise ninkaasaa la qusquslaysaa maanta oo dhan alla cafwan raalli noqo aan kaa sii tago marinay waan ku soo wici doonaa kuley yaana shaqada kaa mashquulin nabaday cali arrimo badan oo wanaagsan oo kugu saabsan ayaan maqlay joofle waxaan u imid inaan anigu indhahayga ku arko arrimo wanaagsan oo sidee ah yaase kuu sheegay taasi muhiim ma aha waxa muhiimka ah waa inaan maqlay inaad tahay nin geesi ah nin ciidan 2 qof ka kooban u kaxaystay si uu u sameeyo burcadbadeednimo wah ruuxaasi geesinimo ma ahayn ay doqonnimo ayay ahayd doqonnimadii saaxiibkay gallad uu naftiisa ku waayey warniyahu nolol iyo geeriba way nala gudboon yihiin annagu wakhtiga aan dhimanaynana ma dooranno middaas ma huba anigu dhegayso waxaan halkan u imid inaan hawl kuu soo bandhigo haa si fiican ayaan hadda kuu fiiriyey oo wejigaaga iguma cusba haa adigi waayo qofkana soo eriyey anigii saaxiibkay markii aan burcadbadeednimada raadinaynay waxaad tahay mudanihii burcadbadeedda waryaa ha qaylinin niyahow oo magaalada oo dhan yaysanna maqlin saaxiib wax adiga kugu saabsan ma rabo inaan faraha la galo taas cagsigeeda wax kasta oo kugu saabsan ayaan rabaa waxaan rabaa nin geesi ah oo ciidankayga u raaca biyaha xiise uma qabo arrinkaas aniga joofle waxaad samayn kartaa lacag badan oo beddeli kartaa xaaladda ay qoyskaaga ku jiraan hadda waan dhiman karaa oo keliya ka feker carruurtaada iyo riyooyinka aad markaasi la maagan tahay bal qiyaas inta wax ee qoyskaaga ay ka heli karaan dhowr shaqo oo burcadbadeednimo ah cajiib looma baahna inaad lacag yar ka samayso kalluumaysiga lacag badan ayaad helaysaa xiise uma qaba arrinkaas mar kale ayaan ku leeyahay war waan ogahay inaadan xiise u qabin laakiin waxyaabaha qaar aan samaynayno waxay iftiiminayaan mustaqbalka carruurteenna dhiiggeenna iyo dhacaankeenna waayo carruurtu iyaga dartood u samee abshir sidee tahay maxaa ka qabanaysaa asbitaalka hortiisa fiican duuliyaali hooyo ayaa igu tiri halkan iigu suug saaxiibteed ayay soo booqatay haa waan arkay iskuulka ka warran wuu fiican yahay noo soo noqo mar aad diyaaradaha nuu sheekaysid haye insha allah waan idin imaanayaa diyaaradaha waan jeclahay oo waxaan rabaa inaan sidaada oo kale duuliye noqdo markaan weynaado maasha allah riyooyinkaagu way quman yihiin abshir markii aad weynaatana waad noqon doontaa duuliye diyaaradeed ha raja dhigin waayahay mar dhow ayaan is arkaynaa insha allah nabaday duuliyaali nabaday duuliye abshir haa duuli abshir nilii dhaho waa jeclahay warniyahow wax xiisaha uma qabo in si fudud loo taajiro waan arkay waxa qofka ku dhici kara saaxiibkay gallad ayaa u geeriyooday daahir sheekh rooble ayay noloshiisa khatar ku jirtaa oo suudaan ku xanniban dhib inuu soo gaaro ma rabo aniga howlgalladeenna burcadnimadu waa degdeg oo ma sayrayno wax badan oo wanaag ahna muddo yar ayaan ku helnaa oo meeqo qof ayaa u dhintay imisaan xabsiyada u gashay maxaadan kuwa guulaystay u arki karin iimaan isku yeelniyo hadalkan waan ku daalay oo marqaanka ayuuba iga jiirayaa $800 ayaad helaysaa halkii howlgal maxaa tidhi $800 ayaad maalmo yar gudahooda ku helaysaa joofle hawsha ma soo gelaysaa mise qof kale ayaan raadsadaa cabdinuur aad ii dhegayso ma hubtaa hawshan
oo waan ku dhaqaaqaynaa mise waad ka fakaraysaa mar haddii hawshan la galo lagama laabto haa mooge waan hubaa mar dhow ayuu dhismaha dawladda ka soo baxayaa waan ku dhaqaaqaynaa sow maaha hawsha haa ha la galo hawshan ha la galo cidna lama weydiinayo gadaashay halow hawsha ha lagu dhaqaaqo ha la fuliyo hawlgalka may maqashaa waryaa waayahay waan samaynayaa arrintaas guddoomiye waxaad hawshaasi ka qaban kartid ma jirto miyaa nasiib darro maya diri suudaan daaqsan ma hoos timaado arrintaasna faraha lama geli karno waa murugo inteeda la eg qoyska daahir shiikh rooble way balanbaleen in $12,000 oo dollar la aruuriyaa shaqo fudud ma ahan guddoomiye waan fahmi karaa dirir waana wax laga murugoodo in dhallinyaradu ay shul iyo shal galaan iyagoo aan ka fikiraynin dadka ay ka tegayaan wax badanna ma hayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan bixiyo waxa aan hayo $50 iigu dar qaaraanka waad mahadsan tahay shiikh rooble ayaan u geynayaa intaan waan sii baxayaa guddoomiye aniga laftirkaygu waan sii baxayaa ee inakeen aan wada baxnay guddoomiye inaan ku weyddiiyo maba ahee balse xaggee wax marayaan baaritaanadii ku socday cabdinuur iyo mooge ma rabo dirir inaan ka hadlo hadda sababtoo ah ma rabo inaan u muuqdo sidii qof carqaladaynaya baaritaannada waxaanse ogahay inuu kiisku mar dhow soo dhammaan doono sidaasi ayaan filayaa guddoomiye aniga laftigaygu ha ka welwelin dirir caddaaladda ayaa shaqayn doonta warkaasi wuu ii farxad gelinayaa hagaag marka anigu dhankaan ayaan aadayaa adiguna xaggee u socotaa anigu dhankaa kale ayaan u socdaa dirir waa inoo iyo hadhow guddoomiye waad ku mahadsan tahay shaqada wacan ee aad haysid adiguna sidoo kale dirir ha ka daalin weligaa inaad dadka wanaaggooda aragtid oo aad wanaag samaysid nabadgelyo waryaa halka istaag waryaa bisinka alla maxaa jira oo yaad isku malaysaa waryaa waa adiga halkan intaad timaaddo wax kasta beddelayee yaa wax ka hadleeyay aniga maxaa jira aniga wax ka hadleeyay yaa wax ka biyey aniga aamus waryaa aakhiro ayaan kuu dirayaa saacaddaadii way dhammaatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wah arrimaha daaqsan way sii kululaanayaan kala soco xalqada soo socota ee sahanka nolosha si aad u ogaadid cidda la toogtay xalqadani waxaana sidoo kale ka war dhowraynaa waxa ku dhici doona joofle waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikirkaaga joofle waxaa mar kale la geliyey damac burcadbadeednimo macafin lahayd mar labaad haddii uu ku laabto burcadbadeednimada macafin lahayd mar labaad haddii uu ku laabto burcadbadeednimada fadlan nala wadaag fikirkaaga adigoo si lacag la'aan ah noogu soo diraya fariin qoraal gaaban nambarka 354 waa nambarka 354 ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid wayna farxad gelinaysaa inaan fikirkaaga ogaanno waxaa inoo ballan ah wakhtiga xiga iyo la socoshada nolosha jilayaasheenna oo aad kala socon doontaan halkan sahanka nolosha